السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذي. كيف يا شباب؟ في عنتاي. الحمد لله والله عافاك يورن. aad iyo fiican alxamdulilah xaalad suma wanaagsana. ما شاء الله والله دق واي. ايش alxamdulilah. أنا حوقا نقدم في السوق بحاجة كاميرا توسينين. caawa live wejigeegu instagram kusoo muuqday igu horeysa aniga. والله ما شاء الله ما شاء الله الله كشر الله كشر والله وأكو فرح سنة amiin. وأكو فرح سنة أنا كان نقول بلاد waa run waa run waa هذا كريم هالعيني أنا والله. caawa igu horeysa habeen aan live soo fadhiisto waxa weeye meelaha tiktok kuma lihi الله أكبر صح. instagram live soo fadhiista caawa ka wey tahay. هذين خير قبل الله الله. هذين خير قبل الله كدق هذين خير قبل الله كدق. amiin walaal amiin allah akbarak adigana soo fadhiisa khayran. waa kaaga mahad celinaya waxa weeye dadaalka aad ku fidisay waxa weeye aad ku bixisay inaad barnaamijkaa noo soo diyaariso ilaahay subxaana watacaala abaalkeega kuu libin laaba adiga. اللهم آمين ولكن مثل قفك برنامج سو دياري أو نوع قوانا أو مانتي أما عاو أكفى إذا سنتون أكثر كانت تدش أديك ويا إلهي ما أنت يوم الآخر ميزان كان حسنات الله كوسار. amiin عاو walaal amiin. قالوا دعاء دا ذيرو ما أركنه ماشي إلا يتكتو قارتي دان يرد ميلا كلت معناها مالكس إلا تقولوا بهاي والله هدي معناها دتك وينك سنة ماشي أسكع عران حالقي يا بابا وحا وعرن دتك ما أبنين بس. waa run دان inay يرد boos سوي. ma Mhm. waxaa laga yaabaa hal kelmad oo aad sheegto inuu qofku isku bedelo هذا وين. waxa weeye qof dhan aad noloshiisa bedesho marka haddii looga yaaco oo la dhahdaa waa shirkii baa meesha ku jira shar baa ku jira shaydaan baa ku jira laga cararo waxay noqonaysaa waxa weeye dadkii inay ka yargaabiyeen waxa weeye aad moodaa in xagga ay noqoteen xagga ducaadda inkastoo imika waxa والله weye fara badan aan kusoo kaxaynay waxaan ku idhaa leeya war xagga soo gala xaggana khayrku yaallay ummaddaa ka صوت sheega صوت ما شاء الله والله waxaan laga dareemaa wili ummad khayr qabta inay joogto macnaha 100 kun kugu xiran waa arkay macnaha TikTok inay isticmaasho ma ogeen horta horeeto 100 kun marka arkaa dhaho wallahi shaqo fiican uu ustaadka meesha ka hayaaho niyo waa ee meeshaasi waa meel khayr isaga baahan runtii aad weyn dadkeenu khayrka way jecel yihiin dadkeenu waa dad goba khayrka way jecel yihiin oo khayrka way soo dhaweystaan yani ma aha waxa weye marka inta badan kama yaacaan hadda waxa weeye waxyaabaha aan aadka ii jeclaysiiyena waxa weye meeshaan khayrka ka gudbiyo waxa weeye soo dhaweynta wanaagsan ay dadkaasi ii sameeyeen weye sababtoo ah mar alaalin waxa weye dad waxa weeye muuqaaladii sheergaranaya commentiyada waxa weye commentiyo wanaagsan kasoo bixinaya markaad aragto waxay kugu dhiirigelinaysaa waxa weeye adiga naftkaaga inaad istimulaad aad ku samayso waxa weeye aad hawshan halka kasii wado aad weyn wallahi dadkaasna Allah noo dhowr waa ku loo baahan yahay bulshada ma arkino qof kasta adiga qof wax soo gudbiyay ma noqon karo laakiin si qofki wixii walaalkii soo gudbiyay ama xadiisida adiga badanaa kale soo qaata u soo gudbisid ayakan haddii kale u sii gudbiyaan waxa waa ayakan ma sha Allah wallahi waxay leeyihiin ajir caadi ahayn waa ajir caadi ahayn leeyihiin internetka muuqaalo aad soo gudbisay intaasoo walaalay uu gaaro aduu ismaad lahayn bal u fiirso aduu xataa ismaad lahayn 5 qof buu gaaraya 10 qof buu gaaraya ismaad lahayn laga yaabaa intaasoo qof buu gaaraya laakiin muuqaalkii markaad dib u eegto adag 100,000 200,000 markaad aragto oo qof oo muuqaalkaasi laga yaabaa inuu gaaray yani waxa weeye waa arag inaba sawiraysan bay kuwa noqonaysaa marka qaar aad weyn aad ilaahay nimcooyinkiisa ka mid tahay wallahi macnaha adiga waxaa muhiim ah inaad dadka u soo gudbisid wixii kadib ma arkin oo ku dhacayo ilaaha barakadiisa iskale iyo ajirkeeda adlaba gorra waa leedahay niyad iyo maadaama soo gudbinta ay yeelatay imaam maalik baa waxa laga hayay berigii kitaabkiisa muwadda ah qoray baa waxa lagu yeeshay marka culimo fara badan baa iyaguna waxay qoreen kitaab la yiraahdo muwadda kitaabkaasi wada qoreen kelmad marka dhaxalgalaa buu sheegay sheekhu wuxuu yiri markii lagu yiri sheekh de waxa weeye kitaabadaas wada qoreen maxaa jiray markaas wuxuu yiri ما كان لله فهو باقي وحي إلهي درتي أهي ما رب باقي وهانيا يعني كلمة داس واحد نقطة كلمة أهل كل نقطة وحي إلهي درتي أبقى بتها ما رب وهانيا يقول حوي باقي هانيا ما كإله سبحانه وتعالى هنكبرين هنا نقدر نقول وحوي باقي نقدر نقول ما شاء نقبل الأردن ما شاء الله ما كان لله باقي وعليكم السلام ما كان لله باقي هي ما كان لله باقي الله أنا درتيها مرة باقي ما شاء الله وحاوي أستاذ ياشين وحاوي حكمت في عنا نوع حيان مرك أنا كان كور قبل الله يبارك والله إن شاء الله كواس مرك ديني أهدين كن دتك لو ذا قدين حسنا ماشي كوت أستاذ ما أنتو حنوصو ديارسي
ما أقدر حتى الأستاذ كان أفكار يقصر قبنا أنا كليه كرهتي إن كرهته لكن في حد أعرف هنا رونتا حويا شيخ حد أعرف هنا marka sheekha iska ilaaliya dadku ma degdega anoon weydiin sheekhnimad iyo waxaas ma arkin oo daaciga la ولا الخضر بس okay maasha Allah way u adkaan doontaa laakiin insha Allah walaal khatarkaas isku daya ان شاء الله ان شاء الله اكبرك ايوه assalaamu calaykum akhyaarta dhammaantiinba soo dhawaada sida magaciisa maqasheen walaalkeen khadar xaashi cabdi maanta meesha noogu marti qaadan oo barnaamij ramadaanka soo dhaweyntiisa dartiis ugu talagalnay uu noo soo jeedin doono walaalkeen khadar xaashi cabdi wuxuu joogaa magaalada hargeyso wuxuu ka dhigtaa jaamacadda goolis shareecada islaamka ah oo master degreegiisu haddeer diyaarinaa ilaahay ha u barakeeyo waxaa waa marka nin diinta ku howlan insha allah aan rajeeyen mustaqbalkan inuu saas ugu sii howlanaan doono isagoo cilmigiisa iyo wanaaggiisa sii fidiyey annakana aan noqon doono dadka ugu horeeya oo ka faa'iido marka waxaan kusoo dhaweynaynaa walaalkay iyo mawduucu maanta noo soo diyaariyey soo dhawo walaalkay بارك الله فيك وعلى الله كبرك جزاك الله خيرا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى الله لما أنتم درتوا سلامها وحكرنا مهندق إلى سبحانه وتعالى وإن وافجي خيرك إن نسكسوك بالنية إنه كرنبا إلى سبحانه وتعالى وحين ويديسنا إنه نغيره الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه كوا حوي هذا الكمقلة dabeetakiisa wanaagsan raaca ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu kulankeenan ka dhigo kulankii ugu horreeyey laakiinse aanu ka dhigin kulankii ugu dambeeyey insha allahu tacaala aynu kulan oo noocan oo kale insha allah dib uga kulmi doono waxaa kaloo mahadnaqayaa waxa weeye walaalkay allah barakay cabdiraxmaan jazahu allahu khayran waxa weeye barnaamijkaas igu soo xasumay aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadkiisa ha ugu daro mawduuca runtii aan ugu soo talagalay caawa waxa weeye kolley inkastoo waxa weeye hadalku gaaban yahay gaaban waxa way hadal gaaban goorteed gaaban soo mahay iga sax sheekh maasha Allah adiga murtida kugu imaada nawd ma xasuusto maamadas ma aqaan Allah ku barakeeyo walaalihiin baan nasiixi doona insha Allah taala kulli radwaaki waxa hadal kuna ha khayrul kalami ma qalla wa dalla waxa hadal waxa way ugu khayr badan kii waxa way gaaban ee koobta kaas oo khayr badan marka waxaan doonayaa kelmaddan insha Allah taala inaan ku soo koobo xiriirka ka dhaxeeya ama ciwaankaasi waxa xiriir muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya Ramadaan iyo Qur'aan Ramadaan iyo Qur'aan yani xiriir nooc ma ka dhaxayn kara ana qofku Ramadaan sidee uga faa'iideysan kara Qur'aankii midda koobaad horta xiriirka ka dhaxeeya Ramadaan iyo Qur'aan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu inoo tilmaamay in Qur'aanka la soo dejiyay bisha Ramadaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Qur'aanka waxa uu ku yiri shahru Ramadaan alladhi unzila fihi al-Qur'aan هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان وبشهر رمضان وبش الله سبحانه وتعالى وسودتي قرآن كأي وسودتي يسوق مركه هنون أو تدكي مركه الله سبحانه وتعالى يسوق المام يا قرآن كن وحوي رمضان دحية سودتي وليه بين وحوي بركة سنة وسودتي بالله سبحانه وتعالى وحولها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين waxaan soo dejinay habeen barakaysan habeenka barakaysan culimada xilaadan waa habeenka Laylatul Qadr habeenka Laylatul Qadr waxa ku jira bishan barakaysan ee Ramadaan Qur'aanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ku tilmaamay inuu yahay hadalkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuxuu wa in ahad min al-mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay haddii mid ka mid Nabi Maxamed oo mushrikiintu uu ku weydiisto magangeli buu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu leeyahay ilaa uu ka maqlayo kalaamka Ilaahay oo Qur'aanka kariimka ah idan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu noo tilmaamayaa kitaabkan Qur'aanka inuu yahay hadalkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Qur'aanku waxa weeye hadalkii Ilaahay saaynu soo sheegay Qur'aankan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu soo dejiyay ummadda Nabi Maxamed isagoo sharaf u ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa ku tilmaamay ummadda Nabi Maxamed sharafteedu inay tahay Qur'aanka إلهي سبحانه وتعالى وحولي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وحانو دي سودة إن كتاب أي كوتشر تشرفتين أميدا عقلية كراتون اللهين وقرآن إلهي سبحانه وتعالى وكوض مركز إلهي سبحانه وتعالى قرآن وحو كتل مامي إنه يهمد معجزة أما معجزة أو إلهي سبحانه وتعالى وكتل مامي إنه كوصلي معجزين فربنا كون كنا تصنيا إلهي سبحانه وتعالى قرآن وحو كولي سوى مكا قرآن كي معجزين كوصلي قارك من الشيء
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. كتاب القرآن كهي إلهي سبحانه وتعالى وحوليه هي وحان قدارنا يا بمواقع النجوم ميلها أي حدوه الدقاني إنه لقرآن إنه لقسم لو تعلمون عظيم. وأنا طار هدي وحوي إنه لقسم لو تعلمون عظيم. وأنا طار هدي أتقرنا سان وين إنه لقرآن كريم وكتاب في قرآن كها إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيساها. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay haddii uu kusoo dejin lahaa buuraha iyo dhagaxaanta in ay waxa weeye khushuuc aawadeed ay u burburi lahaayeenba. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasaddican min khashyati illah. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay haddii aanu kusoo dejin lahayn qur'aankan buur iyo ama dhagaxaan kusoo dejin lahay waxaan arki lahay isagoo khushuucsan oo waxa weeye dildillaacaya min khashyati illah cabsi ilaahay aawadeed. قرآن كاس ويي كإله سبحانه وتعالى صار نقول المامية قطب كلامات نقول بيا هديان كقول بمرك علاقة كذا حيسا أما تعريف كقرآن كا أي علماء الشيعان إله سبحانه وتعالى قرآن كيسوي نقول شيء وحوي إيه وحوي علاقة كذا حيسا رمضان تا قطب كلامات نقول بيا وحوي هي تدبر القرآن في شهر رمضان بشهر رمضان رمتي وبالقرآن كوحيابها اللي وقف في يستاهل كو كتهي إنه وقف كتدبر القرآن هذا بتدبر القرآن محاوية تدبر القرآن هدين وقطب كاس لصوق بنو صدق قضاء بندوني أنا كهذا ميدانا تدبر القرآن محوي هي أهمية نوع ما يولي هي الثمرات النتيجين أما وحوي مرة أنت لك بالغ قوسان كره. هذا تدبر العلماء وحكوت المعمل إنه هي التأمل والتفكر في آيات الله تعالى وإن الله في الصلاة أو الله حوي لقى فكرة آيات ربي سبحانه وتعالى أو حوي الله في الصلاة. أهمية الأولى هنا إلهي سبحانه وتعالى القرآن كيس إنه قلت المعمي لبقى أيضا نقصوا قادر المعمر. إلهي سبحانه وتعالى سوى النوت المامية كتاب القرآن كأهمية أوليه إنه قف أفير في صبر. فإلهي سبحانه وتعالى القرآن كوحي كوري أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مياني القرآن هي مياني أهين نبي محمد وضدكني قال أفير في سنة كتاب إلهي سبحانه وتعالى القرآن كا هديئوا كأهان لها كتاب كاس عيد كله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وحاي هيري لها إنه يا كتاب وحوي اسخر خلاص لكن سوى هذا الكيله هيو مداس وكبريه. مركز الله سبحانه وتعالى وحاول نوت المامي أو يريد وقلت المامي تدبر كأي إن لقول تدبره الله في صدى آيات الله سبحانه وتعالى إذا هاي سببت القرآن كم بالله سودة شيء باي الله سبحانه وتعالى وحوله هي في كتابه الكريم. الله سبحانه وتعالى وحوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكتاب الله سبحانه وتعالى القرآن كريم كتاب ويقرآن كريم إلهي سبحانه وتعالى بركيي ليتدبروا آياته. سببت الله سودة شيئا أي طاي إن آيات الله سبحانه وتعالى أي كنت تدبران أفير في الصلاة. مركز الله سبحانه وتعالى يسوي النوشي يا وحوي تلمامي إن هرس إلى إن لو تدبرون قرآنك فإله سبحانه وتعالى وحوري أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني هن قال القرآن كي كتاب الله سبحانه وتعالى كنت تدبرية أو أفير في الصلاة أو كف كيه آيات إلهي بيسوق قلوب تود قفل بكل شيء بالله سبحانه وتعالى ولي. هذا بس ثمرات النوع ما يا بالله جهرة هي وحوي نتيجين قف ودوك تدبر وجاري ما يتفتح. من ذا كوباد وحايته التدبر يورث اليقين ويزيد الإيمان. تدبر كقف القرآن كآيات الله سبحانه وتعالى وأفير في الصلاة وحا وكفى إذا إن إله سبحانه وتعالى وسيادين إيمان يقين في سناء كربيسو وقدم كقوبان قدم كربان وحوي هي قرآن كقف مركو كتدبره وحاوي الطريقة وقف كجاري آيات كإلهي وكتدبري أو أفير في الصلاة أو كف كري طريق عمل فري لهوي أو حا كالدول مركز القرآن كي أبا خيسو إن ضل مري هي ما كان أفير تلك الدول حتى ضل مرتوح على جبا إن آيات ديك وصلنا ونقلين لكن ما كان أفير سطو وحد كفى إليسا أو أتكره ليسا إن آيات ضاع أفير سطي أتدقن جلسو مركز تدبرك أما أفير فيسك آيات الله سبحانه وتعالى نتيجة إليهم كم تعتاسنا تصدق حاجة حوي قفك مركو كتاب الله سبحانه وتعالى كنت تدبره وأفير فير صدو وحي كمت هي أسباب تقوى وين الله سبحانه وتعالى إيمانك قفك وكسياديو وحاكا لك كمت هي أسباب تقوى وين قفك قلب جيسة وحوي كتشل أيو قضب كأفراد وحوي كمل وحوي تمروين كامل نتيجوين كلاجا قصته
waxa weeye tadabburka ama quraanka oo fiirfiiradkiisa waxa weeye in qofku uu waxa weeye naftiisii uu ku waaniyo oo kitaabka quraanka marka uu u fiirsanayo waxay ka dhigan tahay qofkaasi aayaadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naftiisii uu ku waaniyo qodobka ugu dambeeya ee aan kusoo gabagabeynaya waxa ay tahay ama waxa weeye mawduuca ugu dambeeya kusoo gabagabeynaya waxa weeye at-ta'athur bil qur'aan qofku qur'aanku uu saameey intee lagu kaga tagi karaa qofka hadduu qur'aanka akhris markuu akhrinayo isagu uu si khushuucsan u akhriyo ama si marka uu dhageysanayo uu u dhageysto si khushuucsan waxyaabaha ugu badan ee uu ka faa'iido waxaa ka mid ah waxa weeye inuu raad kaga tago kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ee qur'aanka taana nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa tusaale noogu filan oona kusoo gabagabeynaya insha Allah ta'ala xadiiska uu soo saaray imaam Bukhari oo Muslim عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صحابي قال له جري با waxa uu رضي الله تعالى عنه nabiga عليه الصلاه والسلام maalmaha kamid waxa uu yiri اقرا علي القران quraanka igu akhri markaas waxaan ku wuri saxaabigaasi aqra عليك وعليك انزل nabiga ilaahayow ma adigaan kugu akhriyaa quraanka adiga laftakaaga lagu soo dejiy markaas rasuulka عليه الصلاه والسلام waxa uu yiri inni uhibbu an asma'ahu min ghayri waxaan jeclahay in aan ka maqlo in aanan yahay انت رسولك عليه الصلاه والسلام وكوري بس صحابيgaas waxa uu yiri waxaan bilaabay in aan akhriyo suuratu nisa ayaan bilaabay in aan akhriyo dabeetana waxa rasuulka عليه الصلاه والسلام uu tilmaamay صحابيgaas man sheegay radiyallahu ta'ala anhu waxa uu yiri markii aan soo gaaray aayada Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka uu ku yiri فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سيبو حال نقون دونا نبي محمدو حال سيبين نقون دونتا markaan adiga ku keeno maalinta qiyaame kuwan aad waxa weeye lagu soo dirina aynu keeno fakayfa idaa ji'na min kulli ummatin bishay say waxaa noqon doonaa markaan ummad kasta u keeno mid markhaati ku ah waji'na bika calaa haa'ulaa'i shahiida adigana aan ku keeno oo aanu ku soo xaadirino adigoo markhaati ku ah waxa weeye qoomkaagii lagu soo diray dabeet waxa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yiri saxaabigii amsik halkaa ku jooji saxaabigaas waxa uu markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam jooji ugu yiri faltafattu ilayhi fa idaa aynaahu tadrifaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waan qiimooday misawaaba isagoo labadiisii naga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay burqanayaan ilma aawadeed raadkaas ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay kaga tagtay qofkana looga baahan yahay inay raadka waxa weeye qur'aanku uu kaga tago waxaana laga dhaxlayaa midaasi qofku markuu ku tadabburo ee uu aayaadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala in fara badan uu u fiirsado Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo waxa weeye kuwii ramadaan taas qur'aanku uu noqdo mid bedela waxa weeye ramadaan taas ay u noqoto qaar ay waxa weeye uu bedel ku dhaco isbedel ku dhaco noloshoodii hore nolosha ramadaan kadib ay isku mid noqonin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa inuu na waafajiyo wixii khayr oo dhan barakallahu fiikum jazakumullahu khayran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل أخي بارك الله فيك جزاك الله خير الجزاء ولكن آدي أم حسنتها خضر حاشي الله كأبان مريم سيد في عنو نوصو ديارسي مهمة القرآن كان نوتستي خاصة حريرك اللي رمضان هل سؤال ولكن ماشي تدبر كدرتي دتك بدنا قرآن إن آخر رمضان كحوجا والسكوت ديا دتك قاركود وحا أركيس أيكو آخرنتيس إن بديان كود دالايا oo ku dhahayaan macnaha 3 jeer inaan dhameeyo raba 7 jeer inaan dhameeyo raba ama ka badan marka meesha su'aala waxa igu soo dhacda oo ah tadabburki dartiis maxaa fiican hal juz inaa akhrisid oo macnaha juzkaas ku tadabburtid macnaha ama hal suurad baa laha ka dhigay ku tadabburtid mase in aad macnaha 3 jeer quraankii 3 beriba aqoon macnaha aad dhameeyso labadaas dhinac su'aala aad isku weydiinaa marka hadda wax yar muhiimadeeda نفع فاهين كرت بارك الله فيك والله horta intaynu haysanaa idii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala na gaarsiiyo waa muddo bil ah muddada bisha aynu haysano qofku waxa uu fiican inuu qaybsado oo salaadaan intii hadii uu firaaqa haysto oo kale ag waxay ku xirantahay inta uu akhrinayo hadii ay noqoto inta uu akhrinayaa salaadaan haduu ugu talagalay inuu akhriyo maalintii 5 jis haduu ugu talagalay oo kale macna waxay noqonaysaa waqtigiisii marka 4 jis markuu akhriyo oo 4 jis ahaan uu akhriyo mikrofoonka xogaa u soo dhawaashay وقتك بدل عفوا ولا مقلة صوما عادي marka qofkii hadii uu qaybsado waqtigii rabaanta maadaama lagu jiro uu qofkii qaybsado waqtigiisii tusaalaan wuxuu ugu talagalay inuu akhriyo bishaas oo dhan inuu akhriyo 10 jeer 10ka jeer uu akhrinayo waxa u fiican 10ka jeer 9 jeer akhrisaan ay wahaato halka mar ee tobnaad inuu ka dhigo in uu ku tadabburo aayaadkii taasina waxay ku noqon kartaa tusaalaan salaadii casar iyo waxa laga yaabaa subax iyo duhur iyo casar iyo maghrib iyo cishaay salaad kastaba waxa ku daba xiriirsan waqti yar firaaqa waxa laga yaabaa qofku inuu helo waqti yar firaaqa dabeetana marka uu siyaa quraankii akhri
haddaba waxa u fiican qofkii inuu samaysto waqti maskaxdiisa iyo maankiisa ay degan tahay oo aanay naftiisu waxa weeye aanay dareemin degdeg iyo wax lamid ah oo qur-aankii waxa weeye markuu akhriyo uu qalbigiisa uu taabanayo waqtigaa inuu la eegto u fiirfiirsadka tusaalehaan salaam subax oo kale markaan ka baxo waa waqti dadku ay iska hurdo tagaan waa waqti waxa weeye qofkii shaqo tagay shaqadiisii u tago qofkii haddaba chance haystaa inuu waqtigaa u yar fiirfiirsado tusaalehaan maalintii adoonba isku badinayn 2 bog 3 bog 4 bog u yar fiirfiirsado kitaabka ilaahi subxaana watacaala adigoo marka waxa weeye salaadihii kale ama awqaaddii kale ugu tala gashay inaad akhridana halkayga kasii akhrinaya marka waxaad jimcisay 2 mid inaad qur'aankii ku tadaburtid oo aad tadabbur samaysid iyo inaad akhriskaagii farabadisid labadii marka waa la kulmi karaa baaraka allah fiikum ما شاء الله ما شاء الله ميت في عمر أيضا لو هذا بس قدر سنة ليلة في إن شاء الله ما شاء الله فإذا سيد هذا وكله تقرشين أهل دتك كسي برنا يعني ولكن ما دام وقتي كبيري هاي أخيرت المدريمة أنا ملينا أنا وقتي كسافر مرني ولكن أنت ويدين مالها لقى يوسف حرير كروح أنا به الهيد خدر دارنا إنه وتجل الهيد مجرى هذا الدارن كله وحوي وما سوت لقينا وحوي يعني هذا بان يلاحظه لكن أرتو وحوي دردارن وحوي وحنا وفلان تولاه سبحانه وتعالى أدر دارمي أمضان يتيك أمضان يوم كوري سيبا إله سبحانه وتعالى وحنا أدر دارمي عبسيد إله سبحانه وتعالى أو إله سبحانه وتعالى تقوى ذي عبسيد إله سبحانه وتعالى أيابي نادر دارمي واتكوبان الله سبحانه وتعالى أن ويدي سنة إنه نقدر وحوي قاري الله سبحانه وتعالى يتساك بقى دردارن كلا وحوي هاي ما دام بشر هذا نسوق ليه حيابها عوائق ذا أما وحوي قف كوري استهاي كان كتابك إله سبحانه وتعالى إنه منك أنت ربنا سوق قرين ما دام بري أي تاي جمعة سبت دانا أي نقون كرتا هذا أي نقون كرتا إنه أنت كهر يسوع إسكاسي حرا وحوي كهر إيمان كرا عائق كن نقون كرا كتاب كقرآن كا يسوع كلا دحجري كرا تاسوح أفضل سامرك وقف إسكاسي حرا إن جordو كتاب كلا سبحانه وتعالى وتفرقه وحوي أهمية قرب بدنا أوصيه وحكرا وحوي أن كبر روتين لها ولا لها وحجر بدنا تا العافر بدنا عيار ودنيات هاو بدنا تولي بقى جيم فربنا عياران جيمك وحوي جدول كي وها حرمة ما أنت بيش رمضان كوتاي أيام وقت حساب تمن رمضان تمرك بلابنتو يعني جدول بسيط مثلا جيم كان كعيارنا جدول كهذا تسي حلو كتاب كي الله سبحانه وتعالى وقت على سيو نفط وقت على سيو وحلاقيه بكم يتمك بلاد كلينا حين يأرد واحد كوتشرتين لكن بيش عسى كوتاي بالفصح لغير بيش عسى كوتاي بالأبنرش هذه واحد بدن كي بدري كارتو فكان نفط أنا كان سي كتاب كي الله سبحانه وتعالى وإنه عام موضوع عن قال لنا كان سي وقت سي انت سنجيب على لا يقدر لها بارك الله فيكم ورحمه جزاك الله خير ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير خير جزاك الله خير هذا انا سو ديار جروبين معناها سدخدا سدان نو سو تورتay waxa umaleynaa saxda soo diyaar garoobi lahayd taqwada horta dadka dhan way la wada socdaan laakiin laba muhiim oo ka faa'iido jira aniga oo ah mid koobaad cibaadada ma arkin oo intaas ramadaanka uu sabilaan ka hor waxyaabihii ka jeedin kari inuu qofku uu meel xun iskaga qariyo ama iska tuuro midda labaad oo aadna loogu badan yahay aanan aqaan waliba dalka xilliga aad joognay la dhuuga ha dhihin turubka ha dhihin macnaha ilaa afarkii laga gaarayay waxyaabihi waqtiga lagu dili lahaa inay dadka ay raadiyaan macnaha waqtigan ma dilayna annaka ee waqtiga asagana dilayo khaasatan ramadaanka ma arkina insha allah marka ciyaarahaas oo qayb muhiim u ah dhalinyarada inay iska dhaafaan haddii ilaahay idmo aad iyo aad ugu mahadsantahay walaalkay jazaak allah khayr khayr jazaa ku leenahay Facebook ina isticmaashno ubi TikTok walaalkay waxa laakiin haduu ilaahay idmo linkigiisa meesha idin dhigi doona Instagram ka linkigiisa meesha idin dhigi doona YouTube linkigiisa haduu ilaahay idmo profilkayga usbuucan ila isbuuc asaga uu yaali doona haduu ilaahay idmo Facebook marka hadda u sheeg akhyaarta lama socdo ani ina isticmaashada in kaleeto ma jiraan horta TikTok ta waan isticmaalaa hadda 110,000 inay ku dhow yihiin ma jeclahay ma sha Allah ولا لا خير كقيب قاتل الله سبحانه وتعالى حوي هكذا كل يوتيوب نوع لا هي إن كستان أبدا إنستغرام مرة قارن وحيا صار اللي جمو يعني أنا أبدا إنستغرام كان نفس الكيس بري ورمي استعمالش لكن بدون أود ما صاير استعمالي خاطر تصوير مرة كل يوم توحي إمك عدي عاوة نقطة وأنا رجيني يعني إن شاء الله تعالى إن عاوة أي قدام بيسو وسوشيال ميديا تليفون كان بري أوتش مع عمر كان ضناي كذا ما يسو إن الميركو تورو oo aan sabti aan isu kayso gaarin marka kulli xiriir ma telefoonkayga caadi ah in laga soo waco mise telefoonka weyn telefoonka weyn insha Allah taala khayrna wadi rajayna insha Allah walaalo waxa weey waxay noo ahaan doontaa hadii Ilaahay gaarsiiyo Ilaahayna wuu sanayno gaarsiiyo wixii qabadan ka dambeeyo insha Allah taala inuu khayr barta ka siibano جزاك الله خير خير الجزاء آدي آدم ومحسنتهي أجر حسنات الله تاسي ولاتهي ما أنت حسنات يوم الآخرنا الله كوسان سلام الله عليك عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فيكم